بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحمد محمد أحمد دكتور بانا كسود هذا برنامج كيني إن شاء الله ماد برنامج كيني وحوك سابسين يا عذر كجاسكا سيدا والأجنة جاسكا وعذر تدك الصومالي آد أجوع حوطة ميلا وكل عجاسكا دا وحكتي المامن كو وحاكمد هنجوري مارينكا لبا علاشة سدح خيبت أجو سريسة من دعير يراها أو لو يخانو ديودينام gaaska ku dhaca caloosha waxaa sababa bakteeriya la yiraahdo Helicobacter pylori. sidoo kale waxyaabaha sababa gaaska waxaa ka mid ah qaadashada daawooyinka xanuun baabi'iyaasha oo loo yaqaan non-steroidal anti-inflammatory drugs sida aspirinka, naproxenka, diclofenka iyo paracetamolka. qaadashada cuntooyinka dhanaanka ah, sigaar cabida, alcohol cabida, aashitada oo caloosha ku badata taasoo keento gaajada muddada dheer. calaamadaha lagu garto gaaska waxaa ka mid ah dibiryo iyo daaco, labo ama mantag, kulayl ama korhor, calool xanuun ama bog xanuun. sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaabaha calaamadaha u ah gaaska laabjeex, hurdo wareer, wadno garaac iyo stress ama walwal. talo ku socoto qof walbo gaas qaba marka ugu horeyso waa inuu qofka la imaado cunto bedelid. labo sidoo takhtarkaaga daaweyn kugu qoray inaad u qaadato. saddex ka fogow cuntooyinka khamiirka leh, kuwa dhanaanka ah, kuwa bisbaaska ku badan iyo cuntooyinka shiilan. afar ka taxadar gaajada muddada dheer iyo dheregta badan, labadaba way u daran tahay gaaska. number 5 iska ilaali inaad seexato calooshaada oo buuxdo. number 6 qaado 3 saac ilaa 4 saac ka hor inta aanan seexanin cunto. number 7 oo ah midka ugu dambeeyo, cab caano qabow ah. iska ilaali caanahaasna inay ahaadaan caano dhanaan ah, sababtoo ah caanaha dhanaanka waxay badisaa aashitada ku jirto caloosha. intaas ayaa kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii oo ugu hadlaynay maanta gaaska. waa mahadsantihiin daawashadiina.